شيخنا سائلك كوباد ama su'aasha ugu horeysa su'aasha koobaad waxay leedahay sheekh waxaan ku weydiiyay dadka qaar ayaa marka ay sadaqa la baxayaan waxay dhahaan hala ii duceeyo ama hala igu duceeyo qof hebel dadka noocaas sadaqadaas ajri miyay ka helayaan mise ducadii ayay ku iibsadeen bismillah su'aasha jawaabteedu waxa weeye haddii ruuxu marka hore uu ilaahay dartii wax ola baxay oo niyadiisu ay ahayd sadaqaysatid lacagtaan hantidan ilaahay dartii inuu u bixiyo oo niyada ku hayay kadibna niyada markuu niyeystay kadib haddana uu yidhaahdo raacsatid in lagugu duceeyo ruuxa dhiban ama kaa xanuunsan ama muraadkaad leedahay dhib ma laha ajirna waa ka helayaa sadaqadiisi waa u jirtaa ajirna waa ka helayaa loo duceeyana waa mudan yahay laakiin hadduu qasadku ahaa marka horeba sadaqada aad u bixisid ha lagu duceeyo ruuxii xanuunsanaa ama adiga ha lagu duceeyo ay ahayd markaa wuxuu niyado inbuu leeyahay ajir ka heli maayo asalku waa sida aayaddii xajka ku saabsanayd bay culimadu u daliishadaan qadiyadda ayada walaysa calaykum junaaxun an tabtaguu fadla min rabbikum marka haddii asalku marka horeba waa ilaahay dartii aad u xajidid ood waajibka aad gudatid dana kale oon diinka ka hor imanaynin ee dhibna aan lahayn waa la raacsan karaa kadalika aljihaad baa lamida marka hore ilaahay dartii aad u jihaadid adoo ah haddana haniimadii niyada waad ku qaban kartaa howlo kale masaalix kale dana kale niyada waa la raacin karaa laakiin niyada asalka ay asaasiga marka hore waa inay noqoto ilaahay dartii wixii kalena ay tawaabici noqdaan tawaabicda marka asalka hore aan dumanaynin dhib ma laha gabagaba waxaa weeye ruuxaasi hadduu sadaqada ilaahay dartii oola baxay danta yarna uu raacsaday ajirkiisa waa leeyahay ducana muusan gadanin ilaahay dartii buu wax u baxshay haddii laakiin qasad ku ahaa lagu duceeyo keliya marka iyada ah wuxuu niyado inbuu leeyahay wabilaahi towfiiq